ummad kasta oo kumid ah bulshooyinka ka dhaqan dunida way basigaaraya online munaasabadiyo xaflado qiimo gale oo la ka badhigay taariikhda dhaxalgalkan ay ku taban dadka wadaniyiinta ahaan kale oo halgamay midnimada difaaca qaran kasta ee ku jira caalamka tomeelamada Abriil way kumid ah maalmo qarankan lanka dabaaldego aasaaska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taasina way bay muujiyaysaa inta shacabka iyo dawladda markasta iyo diyaariyo in ku qeybgaado xusuusta maalmo qaran ee kuwin dadka sanadkii 1960 gaar ahaan tomeelamada Abriil yahayti markii la aasaasay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo cudud koobaad ee lafdhabaran dawladnimada isla markaasina ku qeybgaado koran ammaanka guud ahaan qaaradda kan gobolka iyo guud dalka Soomaaliya taliyaha qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sare guuto Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow ee ciidanka xoogga dalka qaybta 6aad awlaadiyo iyo xaasas yoon ka hambalay sanad guurida 61aad ee ka beegan tomeelamada Abriil 1960 Abriil 2021 taasoo ku beegan maanta aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka soo wareegtay 61 sano guuradii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta ku beegan waxaan halkan hambalyo ugu direeyaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan qaybta 6aad saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda waxaan leeyahay sanad guuradeeda kale ku gaara nabad iyo barwaaqo idinka iyo qoysaskiinana damaashaada idinkoo nabad ah ku gaara sanadkan sanadkiisa kale iyadoo waliba ay ku soo beegantay bishii barakaysaneed ee Ramadaan waliba dhinaca kale Janaan Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow ciidanka faraynti fijignaan dheer ee Suubyaan yoona bala barakaysan ee Ramadaan nabadiidka al-shabaab iyo hoojiyayaan sida la ogay deediyowka dhiiga shacabka Soomaaliyeed munaasabadan maanta waxaan halkan ugu faa'iideysanayaa sidaan ognahay cadawga al-shabaab bishan barakaysan ee Ramadaan waxay kordhin jireen sida la ogyahay inay daadiyaan dhiiga shacabka Soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan gaar ahaan qaybta 6aad colalka madax banaan waxaan halkan ku farayaa in ay feejignaantooda laban cadawgana ay u babac dhigaan khiyaamooyinka iyo dhagaraha ay maleegi jireenna way aragnimadoodii hore ay wixii ay kala kulmeen ay kula falgalaan sidaa daraadeed meel kasta oo ciidankeena joogo waxaan